wiil daayar ah oo ka yar da'da 18 jirka ayaa lagu soo waramayaa in dhac handadaad iyo sidoo kale cagajugleynba loogu geystay degmada Sodre ee duleedka magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee wadanka Norway. Wiilkan ayaa la sheegay in wiil 19 jir ah uu u soo diray qoraal SMS ah oo ugu hanjabayo in haddii uu imaan waayo goob ka mid ah Sodre oo uu ku ballamiyay soona qaadi waayo lacag 1200 oo koronka Norwejiga ah uu tallaabo uusan mahdin doonin ka qaadi doono. waxaana lagu soo waramayaa in 19 jirkan dhaca handadaada iyo cagajugleynta u geystay wiilkan da'yarka ah la soo taagi doono maxkamadda deegaanada galbeedka Norway ee magaalada Bergen bisha koowaad ee sanadka cusub ee 2026. booliiska ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan ka oo la sheegay in wiilkan yar dhaca loogu geystay sidoo kalena loogu hanjabay. waxayna booliisku sheegeen in ay hayaan cadeymo ay ka mid yihiin qoraaladii SMS-ka ay isdhaafsadeen ka oo wiilka loogu hanjabayay in haddii uu lacagtaasi bixin waayo misna imaan waayo Sodre laga qaadi doono tallaabo uusan mahdin doonin. qareenka booliiska Andre Jacobsen ayaa ku waramayo in ay fariimahan cadeyn ka mid fariimahani ay ka mid yihiin cadeymaha ay ilaa iyo hadda u hayaan dhacdadan dhaca ah ee loo geystay wiilkan da'yarka ah. waxa uuna intaa ku daray Jacobsen in wiilkan markii uu tagay goobtii looga ballamiyay degmada Sodre ee laga qaaday 1200 ee koronka Norwejiga ah sidoo kale isla goobta looga furtay faraantii uu xirnaa. waxa uuna intaa ku daray in wiilka isla goobta loogu hanjabay haddii uu dhacan loo geystay iyo sidoo kale faraantiga laga qaaday uu la wadaago qof kale laga qaadi doono tallaabo aad u xoog badan sidoo kalena qof kasta oo ehelkiisa ka mid ah ama qoyskiisa iyaguna la dhibaatayn doono. booliiska ayaa sheegay in dhacdadan aysan qaban kaamirooyinka maadaama goobta lagu ballamiyay ay ahayd meel aysan kaamiro ku xirnayn. waxa uuna intaa ku daray qareenka booliiska Jacobsen in aysan hadda faahfaahin doonin cadeymaha kale ee dheeriga ah ee ay ka hayaan dhacdadan ka dhacday degmada Sodre ee duleedka magaalada Bergen. waxaana lagu soo waramayaa in wiilashan ay ka dhaxaysay aqoon hore sidoo kalena uu jiray khilaaf ka dhaxeeyay dhacdadan ka hor inta aysan dhicin. waxaana 19 jirkan lagu soo eedeeyay dhaca handadaada cagajugleynta iyo dhibaataynta wiilkan da'yarka ah. lagu soo waramayaa in maxkamadda magaalada Bergen la soo taagi doono bisha ee sanadka cusub ee 2026. qareenka u doodaya wiilkan 19 jirka ah ee dambigan lagu soo oogay oo lagu magacaabo Marius Wesenberg ayaa isagu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo dhacdadan iyo dhibkan lagu soo eedeeyay qofka uu u doodayo. halka wararka kuwooda ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.